يوم النجاح اليوم يبدو مشرقا، والكل بالجهد العظيم تألقا. فرح يجلل كل وجه إنه يوم الحصاد فكل غصن أورقا. يوم النجاح اليوم يبدو مشرقا، والكل بالجهد العظيم تألقا. يوم النجاح اليوم يبدو مشرقا، والكل بالجهد العظيم تألقا. فرح يجلل كل وجه إنه يوم الحصاد فكل غصن أورقا. طوبى لمن قد جد في وقت مضى من عمره عزما وبذلا أنفقا، حتى إذا عرق الجبين تلألأت عيناه بالفرح الكبير فأشرقا. طوبى لمن قد جد في وقت مضى من. بسم الله وأنا أخرنا دقيسي. شرف من علم، شرف من علم، شرف من علم وعبد، شرف من علم وعبد ربه، شرف من علم وعبد ربه بالعلم، بالعلم والمعرفة، والمعرفة. خسر من جهل، من جهل عن الواجب، عن الواجب الذي لزم على المسلم، الذي لزم على المسلم من العبادات، من العبادات كالصلاة، كالصلاة والزكاة، والزكاة والصوم، والصوم والحج، والحج، والحج وغيرها، وغيرها. واجتنب، واجتنب عن الحرام، عن الحرام والربا، والربا في المعاملات، في المعاملات في السوق، في السوق ليكون ناجحا، ليكون ناجحا، ليكون ناجحا. من ناجح، من ناجح، من ناجح إلا من، إلا من أطاع، إلا من أطاع خالقه، خالقه وبر، وبر بوالديه، وبر بوالديه، وبر بوالديه وكف أذاه، وكف أذاه عن المسلمين، عن المسلمين، وكف أذاه عن المسلمين. تمام. waxaan sheegayaa natiijada qoraalka akhriska rumaana ugu dambeysay hadda ayadaan ku bilaabay. rumaan labada dhinac qoraalka reading writing kaba 100 ay ka wadataa 100 ما شاء الله ما شاء الله هل ينادو جود هام والله وضع باسه قف 96 كه زي ما تقول أنا والله وضع باسه ممتاز وان كلام ورا يكود جيران نذر حسين 97 سياشن تطوع سياشن تطوع ما شاء الله عفيف عبد الرحمن 99 98 قرالكم 99 آخر 98 سوريا أحمد 97 أو قرالك 100 أو آخرسك بقول سميحة إسماعيل 99 أو قرالك 100 أو آخرسك بقول مودة عبد الله 98 100 98 أو قرالك يبقول آخرسك حنان أحمد 99 100 والله ميت يسرى أحمد 97 قرالك 98
oo reading akhriska Amira Hussein 98 Salwa Ismail 96 oo qoraalka 100 oo akhriska Sudaisi Ahmed 99 100 oo qoraalka akhriskana 100 boqol mumtaaziin way kulligood kaalimo hore ma sha Allah ilaahay ha barakeeyo wayna dadaaleen wayna baaseen ya shahaaday leeyihiin xaflada in loo diyaariyo xaflada ma deerna xaflada ay ku farxaan ya ay leeyso tiriba loo wada miya tiribna loo wada leeyahay say farxayaan ay u boodayaan tiribna loo wada ya giftin way leeyihiin soo giftiga xafladaan la gaarin mid kale oo in la siiyaa marka farxad gelintaasi wax badan ba ka qayb qaadanaysa wax buush garay hadhowda diinta ku rixay noqonaysa marka insha Allah taala Allah idin barakeeyo alxamdulillah ilaahay subxaanahu wa tacaala ay mahadsan barnaamijkiisa qurux badan oo nagu soo gabagaboobay taanka waa arkaysaan waxaa maaragtay war hal isugu ruux baa noo dhiman process ku jirna aan dhex jirniba alxamdulillah maanta way noo soo dhamaatay alxamdulillah wax weyn inaan sheega ma rabi laba arrimood ayaan rabaa inaan baraarujiyo waalidiinta aan rabaa intii aad joogtaan inaan ka faa'iidaysano kow midda koowaad horta ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan u mahadcelino lianna nimcada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aan haysano haddii aan ku shukrina wayno ilaahay waa naga qaadaya ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay la in shakartum la asiidannakum haddii aad igu shukridaan waa idin siyaadinaya wala in kafartum in cadaabi la shadiid haddii aad ku shukridin waysaan ilaahay qabashiisa way daran tahay horta kow marka koowaad waxaan uga baahan yahay macallimiinta iyo waalidiinta intaba inay ilaahay subxaanahu wa tacaala horta ugu mahadceliyaan nimcadan oo ilaahayna siiyey waa taas midda koowaad nimcada ilaahay subxaanahu wa tacaala marka aad ku dhex jirtid ma arkaysa nimcatullahi majhuula idaa turikat curifat yani marka gudaha ku jirto ma aragtid laakiin markay ka baxda dareem waxaa laga yaabaa bilo ka hore in ay waalidiinta inta badan ay haysanin nimcadan hadda carruurtaan inay si fiican wax u akhrin karaan ama si fiican wax u qori karaan ama ay axkaamta barteen waa nimco ilaahay kuu soo kordho uu kuu keenay marka waa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadceliso macallimiintii shaqada qabteen oo ilaahayna u fududeeyey inay waajibka ay gutaana ayagana annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadcelinayna taasi waa number 1 number 2 tan labaadaan sheegi rabo waxay tahay waalidiinta waad aragtaan barnaamijka noo soo dhamaaday qaybaan kasoo gudubnay waa akhriskii qoraalkii yeeriskii iyo axkaamtii intaasoo maaragtay waqti aan kusoo bixinay ayaan hadda soo dhamaysan maxaa noo bilaabanaya marka hadda waxaa noo bilaabanaya safarkii ugu dheeraa oo ah qur-aankii in la barto la xifdiyo laga soo baxo taasna waxay u baahan tahay sabar iyo dadaal iyo in waqti lagu bixiyo waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin waalidiinta in aad sabartaan horta number 1 qofka hadduu sabri waayo waxay u soo socday taa ma gaari karo waxaa laga yaabaa waalidiin badan inay maaragtay ay ku sabri waayeen hawsha lahaayo oo ay gaari waayeen midho dhalkii oo ay sida ku tageen markay barnaamijku u hoggaansami waayeen oo ay sabarka la imaan waayeen ayagana halkiideed maaragtay hadafka ay lahaayeen ugu burburay ilaa haddana ay maaragtay iska dab wareegayaan idinkoo marka soo gaarteen halkan inta kaloo ka dhiman inaad sabartaan linkiga baahan yahay oo amaarta carruurta ilaa ay qur-aanka ka bartaan ay ka dhameeyaan oo hadafka aad leedahay ay ka gaaraan inaad sabartaan tan kale waxaa loo baahan yahay macallimiinta in la garab istaago waqtiga in lagu garab istaago wax alla wixii looga baahan yahay ardayda oo waxbarashadooda dhiirigelin iyo maxaa la jiray wax kasta u noqon karo inay waalidiintu macallimiintu garab istaagaan lianna waxbarashada saddex farqadood ay kooban tahay qayb waa macallimiintii wax baray dadka qaybna waa ardayda wax la baraa qaybta kalena waxa weeyaan macallimiinta waalidiinta afwan waalidka marka hadii meeshii ka baxaan oo macallinkii iyo ardayga isku soo haraan hawsha ma soconayso laakiin maamaha waxaa jirta la yiraahdo laa yacjizu alqawm idha taawanu
dadka haddii iskaalmaystaan ma jabaan marka iskaashito ma kuftaa la yihahdaa waxaa loo baahan yahay marka macallimiinta iyo waalidiinta inay garab isa siiyaan oo caruurtaas sida lagu barbaarin lahaa oo horumar ku gaari lahayeen adduun iyo aakhira ay dadku anfici lahayeen in laga shaqeeyo lianna waxa adduun iyo aakhira ku anfacaya wax weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa inaa caruurtaada bartid berrina adigina way kuusoo duceynayaan markaa dhimatid adigina ajraa ka helaysaa marka waalidiinta waxaan kaga codsanaynaa inaad sabartaan lana dadaashaan caruurtii laguna dhiirigeliyo waxbarashadii waqtigana loo ilaaliyo intaasaan kusoo gabagabeynaa war badan ma geli karno insha allahu tacaala waqtiga ayaa aada iskaga yar wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده معلنك سفعنا أوجاج هذلي هوش أوجو علوس وقرانك مركي لو بربر ديجو قيبت التجويد كهذا كسوق بين ماشي هذا اللي إماضي ماشي اللي إماضي كدير سفر أهان dhibaato badanna way leedahay laakiin macalinka iyo waalidka hadii garab istaagaan wax kasta way fududaanayaan quraanka waa mucjiz hadii loo sabir waayo macalinka laftirkiisa mas'uuliyad weyn saaran cunugan inuu ka soo baxo casharkii la siiyay oo soo xifdiyo waa shaqo kale marka in loo sabro cunugii macalinkii loo sabro hadii si wax noqdaan macalinkii la socdo taasaan codsanayna biidinillah laakiin safarkan ma waa safar aad u dheer hal ciladaan leenahay Soomaali hadaan nahay wax soo la laabtana waaye aadaan u guurguurna saa'id dabaqi cusub ma sha Allah waa xayisiina marka waxaan iga codsanayaa waalidka inaan u sabarno caruurtaas waxbarashadooda darto marka hadafki aan leenahay aan guurno meesha rabti aad laakiin hadafka maxaa waaye hadda maxaa laga soo gudbay farqan tajwiidkii macallimiintii waa macallimiintii waa isla anagii marka inay dhameystaan safarkaas isku daya insha Allah guurkana hal laga yareeyo insha Allah waana mahadsantiin waalidiinta dhamaantiin macallimiinta dhamaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay baa mahadsan intaan halkaas ku dhanyahay labadiisa qaybood waan ku tijaabinaynay caruurtii programka dhameysatay waxaan rajaynayaa waalidku waxa ka maqan kaliya natiijadii qoraalka inaan u sheegno ama akhrisku dhammaanteen markhaateen ka wada nahay ardaydu inay quraanka meel walba loo soo saaro sidii la rabay ay u akhrisanayaan waliba ay u akhrisanayaan sidii qof loo soo akhriyo kale wax ilaahay loogu shukriyo waa nicmo oo dad badan aan haysanin waa xaqiiqatan haddii aad tihiin reer Soosi dadka area degan nicmada dad badan hadda area-diina way ka maqan tahay kama warhayaan wax ilaahay loogu shukriyo waa 114 suuradood wixii ahkaam ku jira in maskaxdiisa la geliyo markay u soo baxdo u soo qabto si isleedin arintaas waa hawl fudud ma wax la soo xifdisay ma oo wax la geliyay markuu saa u kala furaba uu fahmay wixii la geliyay memory inuu soo tuuro hawl fudud ma dad waaweyn badan baan hadda saa yeeli karin oo quraanka akhrisana marka wax ilaahay loogu shukriyo haddaydan ilaahay ugu shukrinin ilaahay waa idin kala noqonaya marka waa muhiim marka ugu horeysa ilaahay baa mahadsan barnaamijkan waafajiyay marka xigtana macallimiinta juhdiga tirada badan ku bixiyay aqoonta inta leeg aruurta maskaxdooda geliyay way mahadsan yihiin miisaankooda xasanaadka Allah u saaro waalidiintii ka shaqeeyay hawshaasi aruurta soo diyaareen ayay mahadsan yihiin inta kadib nooma harsana ilaa aruurtan quraanka ay ku wajahayiin inaan u ducayno maskaxdii quraanka waleysay Allah ka dhigo sharti shaytaankana Allah ka ilaaliyo fitankii cudurada halista hadda socda Ilaahay ka ilaaliyo jinniga insiga sharwadaha Allah ka ilaaliyo quraankana Allah u fududeeyo kuwa adduunyo aakhira dadka anfay Allah ka dhigo waalidkooda anfay ummadda anfay Allah ka dhigo waalidkii macallimiinta ku dadaalayna miisaankooda xasanaadka Allah u saaro kuwii loo shafaacay Allah ka dhigo inta kadib waxaan rajaynayaa in macallimiintu juhdi badan ay bixiyeen kaliya waalidiinta waan xusuusinayaa hawshan waxay ku timid
dadaalka aad bixiseen iyo macallimiin dadaalkoodii macallin haddaan la garab istaagin waxba ma qaban karo macallinka iyo waalidka hadday iskaashadaan macallimiinta iyo maamulka hawshoodii waxa weeyaan way guuleysanaysaa marka guushan waalidiinta iyo macallimiinta ka qayb qaatay dhammaan way mahadsan yihiin kaliya waxaan baraarujinayaa in macallimiinta iyo maamuliinta waalidka markuu u yimaado ay nidaamka ay u sharxaan faa'iidada program ku jiran ay u sheegaan dad badan ma fahansana haddii la cunuga saasaan ku wadaynaa haddaad wadanayso wado haddii kale kuu joogo waxla inaysan fahmin waalidka marka hore in laga dhaadhiciyo waxaad iga rabtaa cunug qur-aanka oo dhan lagu imtixaama in saa loogu sharxo waalidiintana marka carruurtooda la qabto wax kasta oo hawsha fududeynaya inay ka qayb qaataan dhinac u garab istaagid dhiirigelin carruurta in la dhiirigeliyo macallimiinta la dhiirigeliyo waa loo baahan yahay intaa kadib waalidka waxaan ku baraarujinayaa dabcan waalidiin dad badan baa maqan fartiinta idinkaan idin dhiibaya program hadda ka hor aan idhi baan ku celinayaa meesha markasku ku jiro waad ujeedaan sayidi lisan berito macallimiintu haddii isli loogu yeero oo la yidhaahdo guri dhan dhisay falo aan idin haynaay halka ka bilaaba qoladaana gaari kusoo qaada hadii laydin hawshan ma idin ka wareegtay hawshan hadday saa u fido macallimiinta la ogaadana waxaa weeye dad badan ba macallimiin khibrad leh meelahan haysanin bedelkii marka macallimiinta meelkay aadi lahayn idinku safar aad geli lahaydeen meeshan xarun ha laga dhigo oo fiican falaydkan ciriiriga meesha aad fadhidan meesha carruurta ay fadhiyaan ayaa lagu jira hawsha ka shaqeeya ajarna waad ka helaysaa macallimiintu waqaf ma rabaan xataa la raadiya kiradooda way la baxayaan dad way imaanayaan barnaamijka waa la bartay markasku isbixinaya la raadiya boos fiican waasa carruurta meel nifaas leh hool leh carruurta ay ku nashaadaan ay ku cunteeyaan ay marmar ku ciyaaraan in position fiican la helo haddii programkaas aad heshaan reer isli ayaga safar idin soo geli doon iyo dadka ereyda degan marka hawshaas ajaraad ka helaysaan idinkana macallimiinta kala shaqo hadda gurigii meelihii booska ayadoo qofkii meesha karaysan karo lacagtii la bixi karaa ma la helaynaad maba la helaayo marka waxaan u malaynaya mar baan ku baraarujiyey way isku dayeen laakiin booskii waaye marka hawshaas kala shaqeeya intuu markaskaa socda haddii sabab u noqotaan idinkana ajaraad ku leedihin intaad garab istaagi kartaan garab istaaga ilaahayna ugu dhawaada macallimiinta ammaan ha ka sugina haddiiba kitaabka ilaahay saa u garab istaagtaan xitaa beritayni hadday timaado oo adduunka laga tago wixii sabab u noqota ajarkooda kuu soconaya marka hawshaas ka shaqeeya dadka la kaashada ragga la kaashada hawsha markaskan sidii meel fiican u ku heli lahaa lianna ani waxaan ogaa cilmi meesha yaallaan ogaa meel badan ma yaallo maraakista anaa imtixaan ka qaada cilmiga hadda meeshan carruurta saa loo fahansiiyey meel kasta ma yaallo boos u baahan yahay marka dad badan ka baahan baa jira marka macallimiinta khayr allah siiyo ayagana waxaan leenahay markii hoogaa laydin ammaano kedis iyo in idin geline ha istacjub gelinina ya dadaalka si labalaaba ha fariisanina xaqiiqatan dadaal badan baa bixiseen program si fiican aad u fuliseen ما زالوا معلمين تقولي دوري هراء وصوب برتين حدنا ويسي وضع إن أقول في كورة صدام مركا هذه وهي كده بيا أيها معلمين تكسو أدين دون أيها معلمين تهو بري دون ما دام برنامج كنت تجدوا أنا يعني بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا